السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقالنا وحيدا دينودا waxay ku talaa xeebta agteeda ku talaa dhinowda waxay u dhowdahay garacad magaalada waxa aastay ciid ba aastay marka adiga hadii intii lagu yiraahdo lagu dhiibo magaaladan lagu yiraahdo xal u keen maxaad sameyn lahayd su'aasha aan ka rabo oo u baahan inaad ka soo jawaabtid aniga jawaabaan bixinaya aniga videogan arkay waxaan raadiyay halkaygana halka ku arkaysa laakiin adigana waxaan ka rabaa ina ii soo qortid halkaaga hadii lagu yiraahdo magaalada dadkan caaw aan videoga guriyihii iyo masaajidkii iyo meel walbaba barakac baan ka nahay gurigaada ku noolahay bacad soo galay ameek markaa jira soo hadii waa dadkan soo caay waxaan wareer meesha albaabka ugu xirmay wareer muslima la yofrana deegaanada waa ka soo baxa saybada xeebteeda ku taala magaalada say qurux badan u tahay nabadda dadkan hayso waxay maraysaa dugsiga inuu go'doomo subaxii markii ardayda loo soo diro quraanka inay soo dhigtaan 12 saac yimaadaan oo subaxnimo waxay ku qaadanaysaa hal saac ama hal saac iyo bar inay ciidda ka qodaan sidii albaabka loo furo dadka ilaahay keenay oo musiibada oo aan iska qaadi karin oo aan awood u lahayn oo aan dal ku maayo dadkii hadda xaari jiray dawaradii hadda runtii way wada beeleen buushee baan iska dhiso iskaga noolahay labadayda gurina waa xabaalmeen muxuu ahaayeen ceelkii ku dhawaana waa xabaalmay ilaahay baan iska baryaynaa ilaahay inuu naga celiyo wax kale oo aan hadda tabaro aan haynana male dibaada oo wax ka qabta ma aanan helin badeelaan qaadan jirnay wixii waa naga farabadisay waa naga adkaatay guriyihii iyo masaajidkii iyo meel walbaba barakac baan ka nahay inaan meel cilahan dhoobannahay waxay arrintu taagan tahay cirno ubadiin ceello uma mangrove tree baa ka baxaa badu ka bixi kara biyaha isbadu ku bixi kara Where we are can be a bit deceiving. You might assume we are in a normal terrestrial forest, but the tides influence this place. The team has until then to carry out its checks before the forest floor floods with water. The mangroves of Ghazi Bay stretch out over 615 hectares. But today, the team is only concentrating on one small patch. They're setting out a 10 by 10 plot. They're checking the biomass of the trees and for signs of new growth. That's about 7, 8, about 9 meters. Mangroves are important for the health of the ocean. The nutrient-rich, sheltered water provides nursery habitats for numerous marine species. Another very important aspect to look at is the